assalaamu calaykum. ila dhegeyso qisadan cajiibka badan. waxaa jiray qoys ka kooban 3. waxay ahaayeen wiil iyo gabar iyo aabbahooda. qoyskaasi waxay ahaayeen qoys aad loogu karaameeya xaafadda ay degan yihiin. maalin maalmaha ka mid ah waxaa xanuunsaday gabadhii. waxaa si daran loogu qabtay caloosha. maalmo badan ayaa calooshu xanuunaysay, si daran ayaana loo hayay. balse maalmo kadib gabadhii waxa ay bilowday matag iyo lalabo. in muddo ah waa ay matagaysay, waa ayna lalaboonaysay, calooshuna waa ay xanuunaysay. balse wiilkii walaalkeeda ahaa iyo aabbaheeda waa ay tashadeen. waxa ayna ku tashadeen gabadhani in la geeyo dhakhtar. balse aabbihii iyo wiilkiisa gabadhoodii waxa ay ugu shakiyeen in ay uur leedahay oo calooshu ay ku sido ilmo xaaraan ah. ayay is yidhaahdeen aabbihii iyo wiilkiisa. aabbihii iyo wiilkiisa gabadhii waa ay soo kaxeeyeen. waxa ay soo aadeen dhakhtarkii, waxayna u keeneen dhakhtarkii. dhakhtarkii markii gabadha loo keenay waa uu waraystay. waxa uuna weyddiiyey xaaladdu iyadu ay ku sugan tahay ayuu weyddiiyey dhakhtarkii. balse gabadhii ayaa ugu jawaabtay in muddo ah in ay calooshu xanuunaysay, kadibna matag iyo lalabo ay bilowday. in muddo ahna sidaasii ay ahayd ayay u sheegtay gabadhii. dhakhtarkii wax baaritaan ah ma uusan samaynin. calaamadihii markii ay u sheegtayba gabadhii waxa uu is yidhi gabadhani waxa ay leedahay uur, waayo waxa ay kuu sheegtay calaamadaha dadka uurka leh oo idil. sidaa ayuu is yidhi dhakhtarkii. balse dhakhtarkii ayaa ku yidhi aabbihii iyo wiilkiisa, gabadhiinnu waa ay caafimaad qabtaa, wax xanuun ah ma hayo, gabadhiinnu uur ayay leedahay oo ku bishaaraysta ayuu ku yidhi dhakhtarkii aabbihii iyo wiilkiisa. balse aabbihii iyo wiilkiisa si daran ayay u caroodeen. waxayna u caroodeen gabadhii. waxa ayna ka soo kaxeeyeen dhakhtarkii. waxa ayna keeneen gurigii. durba gurigii markii la yimid, wiilkii walaalkeeda ahaa oo iyadu ka weynaa ayaa waxa uu ku yidhi gabadhii, waadna ceebaysay, si daran ayaad noo ceebaysay. xaafaddaani sharaf badan ayaan ku lahayn, balse adigu maxaad samaysay? waxa aad calooshu ku sidaa ilmo xaaraan ah, si daran ayaad noo ceebaysay ayuu ku yidhi wiilkii walaalkeeda ahaa oo iyadu ka weynaa. durba waxaa yimid aabbihii. waxa uuna gabadhii ku bilaabay garaacitaan. si daran ayuu u garaacay. wiilkii walaalkeeda ahaana sidoo kale waxa uu ku bilaabay garaacitaan kale. dhexda ayay gashadeen, si daranna waa ay u garaaceen gabadhii. sidii ay u garaacayeen gabadhii waxa ay gaartay ilaa heer ay dhulka dhacdo. kadib aabbihii gabadha dhalayay waxa uu is yidhi gabadhaani amay sidaanii ku dhimataa. waxayna ka joojiyeen garaacitaankii. gabadhiina waa ay nuuxsan weyday, wax neef ahna waa ay ka soo bixi weyday. maxaa yeelay si daran ayay u garaaceen. aabbihii ayaa gabadhiisa waxa uu ka dareemay in ay halis ay ku jirto, xaaladdeedu in ay u xun tahay oo aysan nuxsanaynin. waxa ayna ula soo carareen cusbitaal, isaga iyo wiilkiisuba. waxa ayna u keeneen dhakhtarka. waxa ayna ku yidhaahdeen gabadhani in muddo ah ayaa caloosha xanuunaysay, kadibna waxa ay bilowday matag. waxaan ogaanay in ay uur leedahay. iyada oo uur leh ayaa si daran loo jirdilay, kadibna xaaladdeedii sidaani ayay noqotay. waxaan kaa codsanaynaa gabadhaani baaritaan adag inaad noogu samayso oo aad noo daawayso ayuu ku yidhi aabbihii gabadha dhalayay. dhakhtarka ayuuna u sheegay. balse dhakhtarkii ayaa uga jawaabay, waan isku dayayaa oo waa aan baarayaa. waxa aan ilaahay ka rajaynayaa gabadhiinnu in ay idin caafimaaddo ayuu ku yidhi dhakhtarkii. waxa uuna geliyey qolkii baaritaanka. balse dhakhtarkii gabadhii si daran ayuu u baaray, xaaladdeeda oo idilna waa uu wada baaray. kadibna waxa uu soo aaday bannaankii. waxa uuna u yimid aabbihii gabadha dhalayay iyo gabadha walaalkeeda oo bannaanka taagnaa. waxa uuna u sheegay gabadhoodii haba yaraatee wax uur ah in aysan lahayn. waxa uuna ku yidhi dhakhtarkii, adinku waxa aad idhahdeen gabadhani waxaa xanuunaya caloosha. in muddo ah ayaa caloosha xanuunaysay, kadibna waxay bilowday matag iyo lalabo. sidaasii ayaad igu tidhaahdeen. balse gabadhani waxa sidaasii u gelayey waxay ahaayeen goryaan. caloosheedana waxaa ku jira goryaan aad u weyn. waxa uu mar weliba ugu dhegayaa mindhicirada. mar weliba oo calooshu ay xanuunaysayna goryaankaasi ayaa ugu dhegayay mindhicirada. sidaa awgeedna caloosha ayaa xanuunaysay. lalabada iyo mataguna waxaa keenay isla goryaanka ayuu ku yidhi dhakhtarkii. gabadhiinnuna wax uur ah ma lahan ayuu ku yidhi dhakhtarkii. balse aabbihii iyo wiilkiisa aad ayay niyadda uga jabeen.
gabadhoodii iyadoo aan wax uur ah lahayn ayay si daran u jirdileen isaga iyo wiilkiisuba. balse aabbihii gabadhu dhalayay ayaa waxa uu ka codsaday dhakhtarkii. waxa uu yidhi gabadhaydii in aan soo eego ayaan doonayaa oo qolkeedii ma uu geli karnaa ayuu ku yidhi dhakhtarkii. balse dhakhtarkii ayaa ku yidhi gabadhaasi xaaladdeedu ma wacna, si daran ayaa loo jirdilay, dhammaan lafaheedu waa ay burbursan yihiin, gudahana dhiig badan ayaa ugu furmay, waxaana loo jirdilay si daran. uma malaynayo gabadhaasi xaaladdeedu in ay sahlan tahay, balse waxaan u rajaynayaa in ay idin caafimaaddo ayuu ku yidhi dhakhtarkii. balse aabbihii iyo wiilkiisa iyaga oo degdegaya ayay waxa qolka ugu soo galeen. gabadhoodii sida arxandarada ah oo ay u soo jirdileen ayay qolka ugu soo galeen. durba markii ay qolka soo galeen waxa ay maqleen dhabaq. gabadhiina waxa ay ku oranaysay, waad i dulmisay aabbo, waad i dulmisay aabbo, waad i dulmisay aabbo ayay ku celcelinaysay. aabbihii ayaa u soo dhowaaday gabadhiisa, waxa uuna soo dul istaagay korkeeda, balse waxa uu arkay gabadhii naftuba inay ka sii baxayso. kadibna gabadhii iyadoo leh waad i dulmisay aabbo, waad i dulmisay aabbo iyada oo ku celcelinaysa ayay naftu ka dhacday. aabbihiina waxaa gariiray jidhkii oo idil, waxaana dilaacay qalbigii. walaalkeedana sidii oo kale niyadda ayuu ka jabay. aabbihiina meesha waxa uu ka tegey isaga oo murugaysan oo aad u niyad jabsan. ayay albaabka ka baxeen aabbihii iyo wiilkiisuba. gabadhoodiina meesha ayay ku geeriyootay, gacantoodii ayay ku dileen. balse aabbihii gabadha dhalayay waxaa soo wajahay murugo badan. maalintii gabadhiisu ay dhimanaysay ayaa nolol caadi ah ugu dambaysay. noloshiisiina waxaa la soo darsay murugo fara badan. maalin weliba waa uu murugoonayey, habeenkiina markii uu seexdaba waxa uu ku riyoonayay gabadhiisa iyadoo leh waad i dulmisay aabbo, waad i dulmisay aabbo iyadoo leh ayuu ku riyoonayey habeen weliba. aabbihiina noloshiisa waxaa la soo darsay murugo fara badan. waxa uu la noolaa murugo fara badan. aabbihii iyo wiilkiisa waxaa la soo darsay murugo fara badan. noloshoodiina waxaa isku beddeshay nolol aad u murugo badan. waxaa la soo darsay niyadjab iyo tiiraanyo badan, maxaa yeelay waxa ay gacantooda ku dileen gabadhoodii. aabbihii mar weliba uu soo xasuusto hadalladii gabadhiisa ay ku dhimatay oo ahayd waad i dulmisay aabbo, markii uu soo xasuustaba waxa uu u malaynayaa wadnaha inuu istaagayo. dulucda iyo xigmadda sheekada ku jirta waa weligaada ha degdegin, degdegu waa camal shayddaan. ilaahay ayaa qur'aankiisa noogu sheegay, fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin ayuu qur'aankiisa noogu sheegay allaah, si aadan u noqonin kuwa ka shalleeya falkii ay sameeyeen. wax weliba inta aadan samaynin iska hubso ayuu yidhi allaah, hadhow si aadan u noqonin mid qowmameeya. odaygaani iyo wiilkiisuna waa ay degdegeen, waxayna yeesheen camalkii shayddaanka oo kale. waxa ayna noqdeen kuwa ka shalleeya wixii ay sameeyeen, waxaana ku dhacday fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. waxayna ka shallaynayeen falkii ay geysteen. qisadii yaraydna intaan haynoo joogto. walaalaha ku xidhan janalka cabdixakiin buruw, fiidiyogan haddaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa janalka inaad noo laygaraysaan, aad sheergaraysaan, sabskraibna aad dhahdaan. mahadsanidin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.